iyo jaamac muuse oo xarunta inoo sameeyey maanta ay ugu horeysa xaruntan waa nin qiimo leh jaamac yani intaa inoo sameeyey cid kaloo samaysa ma arrin dadka dibadaha ka yimaada anigu asxaab baan u sameyn nimanka nime kuwa kale way inoo soo shaqo doontaane kan waxba inoo sameeyo waa in lagu daydaa ilaahay khayr ha siiyo subxaana watacaala maanta waxaan arkay abwahanintii baa soo baxday isma waan ahayn dad baa jira Soomaaliya weli dan guud ka damqanaya iyaga guurta ku bedelna insha Allah taala guurta ayaa ku bedelna dadka naxaya wax loo dhiibay waxay keeneen laba arrimood bay keeneen ilaahay khayr ha siiyo mid waxa weeye laba arrin ay khusaysa labada xusbe kale campaign-koodii foosha xumaa ee qabaa'il sanaa ee reeraysna bay dhahayn iyo cuqaashoodii ay timisay habli yaryar joojiye baa leeyahay taasna waa wayna ka ballan qaadeen inay naga joojiyeen sawiiriye kharajiya maxaad garxajiyadii inaga joojiyaan way qaateen waan ku mahadsan yihiin talaabada waxay abaarahan horta waxa la isla qaatay inay doorashadii waqtigeedii dhicin waxba ka meeraysaninay waxa la isla ogaaday dawladdu dhowr jeer baa korsato ay baqayso aan oran karin maxkamadna saarantay annaga xilki qaadan haddana sabab xisbaab qaad annaga ilaahay moojaane maxkamadna ka baqeen international community ka baqeen ilaahay ka baqay dadkeegana ka naxayna dadkeegan food ka doonino in doonayna insha Allah taala barwaaqo gaarsiino ayaan anagu mudnaanta siinna insha Allah taala gaaladan international community-ga gacan bay nagu leeyihiin laakiin nama xukumaan anagu xamar manihin xamar ay lahaan boqolkiiba 30 dumar ka dhigay annaga dalkeena samaysanay gacanteena ku sameysay ilaahay subxaanahu wa ta'ala cidna uga habran mayno cidna uma martimani taasna waxa weeye annaga u tagina labada xusbi si cad ugu sheegina commissionka oo doorashadii ma dhacayso waqtigeedii waqtigaasaan isla garanay ka ku sameeyay timeline ka leen kaan ku sameeyna insha Allah ta'ala muusana iyo madaxweynaha iyo guurtideeni fiicneed aynu aqbali doonaan halkaas aynu mudnaanta siin doonaa insha Allah ta'ala maxay abaarta dadka hadda bilaabo inay dhintaan maanta buuhda la igala soo hadliyay waxa weeye markaa inaan sameeyno xiriir dadka lagu quudiyo xooluhu ka dhamaaday dadkii badbaadino taasina xoog saarna adduunkana oo qaylo doona gaaladu waxay wataan dimuqraadiyadoodu bay wataan inay meel martay doonaysa laakiin waxa dadkeena dantoodii ma wadnaa marka danteena horeysiina dimuqraadiyada dalkooda ma horeysiino ummadeena horeysiina marka aad iyo aad baan u mahadnaqaynaa Muuse generaalka mujaahidka musharaxa ya intaasna isaga leh waanu mahadsanaa